jaamacadda muqdisho haddii ay iyo odayaashii way joogaan haddii ay awooddaas yeesheen ummaddii soo nooleeyeen waxbarashadii dowladnimadii soo dhiseen caqabadaha dowladnimada soomaaliya ee hortaaganna way xallin karaan. marka raggan gaagaaban ee kuwan dhaadheerba way ku jiraa caqligaasi dalkan xalkiisa waxbarashadii inayna ku istaagin waxbarashadu inay solution la timaado mushkilada asaas haddii cilmigu uu xal keeni waayo cilmi qalalalo meel iska fadhiyaay micno ma yeelanayo. cilmigan waa inuu amnigan xaliyaa, waa inuu gaajada inaga xaliya iyo baahida hadda laga sheekeynayo duruufta inaga xaliyaa, waa in uu wadan dhisan iyo dhaqaalaheena iyo horumarka dhaqaalaheena waa inuu inaga xaliyaa, waa inuu arrimaha bulshada inaga xaliyaa, waa in waxaan social problemkeena haysto dhan xalkiisu waa inuu ka yimaado dhinaca cilmiga. hadduusan ka imanin dhinaca cilmiga luga waaweyn kuma taagna. marka mas-uuliyadda saaran jaamacadda muqdisho way weyn tahay, waa mas-uuliyadda intaa leeg. maanta waxaan maraynaa meel rajo leh. dalkan jaamacadda muqdisho waxay kasoo saartay baa la dhihi karaa iyo afkaarteedii iyo mashruucaas ballaaran inay ka mid tahay dagaalkii sokeeye. laakiin mid kale ayaa yimid haddana, kii kale sidii looga soo saari lahaana waxaa la rabaa inay ka fikirto. dagaal kalea yimid oo kii sokeeye aan ahayn, oo dagaal nabadiid ah, oo dagaal diimeed ah, oo diintii oo si xun loo fahmo oo fikri ah oo aada u qaab daran baa yimid, marka oo qarqarxaya. marka dagaalkaas sidii loo xalin lahaana jaamacadda muqdisho waa uga fadhina. annaga xukuumadda soomaaliyeed go-aan waxay ku qaadatay oo ay aragtay dalkan inuusan dhaqaaq lahayn oo uusan dhaqaaqi karin haddaan amniga wax laga qaban. marka waxaa priority number 1 noo noqday oo qasab nagu noqotay inaan dhahno waa amni, inaan dagaal galno. dagaal buu dalka ku jiraa. waxaan dadka soomaaliyeed iyo jaamacadda muqdisho kow ka tahay iyo dhallinyaradeedu iyo aqoon-yahanadeedu ka codsanaynaa in dagaalkaas la berber istaago. dowladda iyo hay-adaha ka shaqeynaya oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ugu horeeyaan guulo la taaban kara ayay xaqiijinayaan. waana is xoreyn karnaa. intaa waxaa garab socdaa oo tiinna weliba ay aada ugu weyn tahay dhinaca caqliga iyo fikirka iyo maskaxda dadka waalan. marka 3 dagaal oo waaweyn ayaan kula jirnaa. midka koowaad waxaa waaye waa dagaalka fikriga iyo maskaxda dadka laga xaday in maskaxda loo soo toosiyo. kaas baad si xoog leh wax uga qaadan kartaa. midka labaad ee muhiimka aan kula jirna waxaa waaye waa dagaalka dhaqaale. midka saddexaad ee ugu dambeeya wuxuu yahay dagaalka militariga ah iyo xabadda. saa darteed intaas oo dagaala way isgarab socdaan, wayna isdhex socdaan. waxaan rajaynaynaa kaalintiina inaad ka qaadataan oo ah dagaalka toosinta iyo horumarka iyo horumarinta maskaxda. arrinta la sheegay abaaraha waa dhibaato aada u weyn oo jirta. runtii dhib aada u weyn. dadkeenna wax aan horay usoo marin ayaa hadda jira. inay 4 seasons oo isla socda oo isdaba socda inaan rooba diin, oo dadkii ay abaar, xoolihii inay dhaafaan, dadkii inay hadda meelaha qaarkood inay dhintaan. nasiib darro kale waxaa ah haddii xataa wax la gaarsiin lahaa inay adag tahay sidii wax lagu gaarsiin lahaa, oo ay nimankaas dhibka badan ee mushkiladan hadda sheeganay fikradu maskaxdu ka qaloocatay, caqligu ka qaloocday iyo caqiidadu ka qaloocatay, in ay caqiidada qaloocatay foolxumadeedu inay tusisay inay dadkooda gaajo u dhintaan intay baloogareeyaan jidadkooda. waxaan la tacaalaynaa in jidadka la furo. waxaa runtii wax lagu farxaa in from beledweyne ilaa Poolopurta maanta ay furan tahay oo nadiif tahay. waxaan ilaahay ka baryaynaa inta kalena in ilaahay fududeeyo oo dadkaas jidadka loo furo si loo gaarsiiyo waxyaabaha aasiyaadka ay u baahan yihiin si loo gaarsiiyo.